referral hospital Albogays marka hore waxaa mahad iska leh Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo hawshii iyo dadaalkii aan ku jirnay aan ka miro dhalinay waa dadaal ay soo qabatay Soomaaliya oo dhan ay Soomaali ku midowday waxay ka qabanaysay in labada hospital la dhiso oo la furo waxaa mahad iska leh marka koobaad iyo marka ugu dambeysaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala mar labaadka waxaa iska leh ummadda Soomaaliyeed oo aanu qocid kasta yihiin qabiil kasta yihiin meel kasta joogaan kuwii dibadda joogay iyo kuwii dalka joogayba ay ku bahoobeen inay wax u taraan walaaladood waxaan aad ugu mahad celinayaa tiimka ay la shaqaynayay oo ay ugu horeyso oo fikirkeeda ay lahayd Fawziya Ciise جزاها الله خير فكرك أيضا على هاي فكركنا مر والبقف وكذا شاء فكرك قف وكذا شاء لكن وحي أربع فكرك أنت قاتان أنت دبعت هذا أمد هذا أركان طلاب قاعدة قفك هدو دبعت هذه أركو وضاوضة وكذا قاقة معنا ما سمينيسه لكن قفك هدو أركو oo daawaca ama dhibaatada wadankeena ka jira uu arko oo uu ka danqadashadaasina ay keento inuu tallaabo wanaagsan oo maanta haba dheeraatay muddada aan soo soconay 2012 ilaa maantadan muddo dheer bay ahayd laakiin waxay ahayd muddo aan maanta miro dhalkeedii arkayno taas ayaa waxay tahay wax weyn وانا waxaan aad ugu mahad celinayo sida 5 sano aan hadda la shaqeynay ilaa 2015 baan anigu la bilaabay inta aan la shaqeynayay aad baan ugu mahad celinayo xaqiiqo oo qalbigayga ka timi in aan maanta chance ka helaan ugu mahad celiyo sida hawsha ay qabatay oo aan aad ugu faraxsanahay iyo teamka dhan oo ila shaqeynayay oo teamka kalkaal maternity care Nasra Maxamed Mire iyo Kinsi Barashe iyo Safiya Ali Caataye shan baan nahay ana ku shana teamka dhan baan ugu mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa saan sheegay Soomaaliya oo dhan dadkii xamar noogu soo dhaweeyay ee hawsha nala qabtay dadkii garoowe sidoo kale teamka hadda martida sharafta leh nala joogta baan aad ugu mahad celinayaa sida qabanqaabada ay nala wadeen iyo hawsha sida ay noo la wadeen waxaan kala ku darsan lahaa in Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wuxuu ka kooban yahay dhakhtarku reception ama qayb soo dhaweyn oo uu qofku magaciisa ku qorayo lagu diiwaan gelinayo ka bacdi waxa jira qaybo kala duwan waxa jira qaybta bukaan jiifka marka hore bukaan socodka kadib bukaan jiif baa jira qaybta qalliinka iyo qolka dhalmada iyo qolka iyo qaybta raajada iyo shaybaarka qayb kale waxa ku jirta ICU oo ah qaybta dadka xaaladahoodu aad u daran tahay lagu haynayo iyo qayb in lagu hayo ilmaha yar yar ee aan marka dhasho waqtigooda ka hor intaas oo lagu xanaaneynayo ilaa inta ay gaarayaan ay xoogsanayaan oo noqon karaan xaaladooda ay fiicnaanayso ugu dambeyn waxa jirta emergency-ga oo ah qayb waqti kasta shaqaynaysa qofkii dhaawaca qofkii xaalad degdeg la kulanta la keenayo anytime ay furan tahay oo qofka qaybtaas lagu la kulmo wax loogu qabanayo taas waa qaybaha ay ka kooban tahay qayb kasta waxa jooga shaqaalo aan u hayr garaynay oo ka shaqeynaya oo ah dad u qalma shaqadoodii ama ha noqoto shaybaarista ama ha noqoto farmashiga baan ka ilaaway qaybaha kamida ka ah dad shaqadaas professional kale oo tayadeedii leh waxa ugu fiican oo loo keeni karo community-ga noloshooda wax ka bedeli karaya marka dadkii Soomaaliyeed ee suurtageliyay aad baan ugu macdinay haday noqdaan Mareykan haday noqdaan caasimadda qaranka Soomaaliyeed haday noqdaan Garoowe aad iyo aad baan dadka Soomaaliyeed meel joogan ugu macdinaya waxaan mahad balaaran celinayaa oo kaleento teamka kalkaal maternity care dhamaantood qof walba qayb ayuu ka qaatay qof walba qaybtiisana uu ka soo baxay isu qaybaha la isu geeyay ayaana halkan la soo gaarsiiyay marka taasna waa mahad celis aad u balaaran waxaan mahad u celinayaa dhaqaale aruurintii ugu dambeeyay Garoowe ka sameynay soo dhaweyntii iyo garab istaagii ay dadka
madaxda ah ee Soomaaliyeed ee jooga gobolkaas ee nagala qayb qaateen oo qof kasta uu dareemay in maxay haytay ay arintan muhiim tahay iyagoo anaga aan garanayn oo waxay u dadaalayeen ay ahaayeen arinta aan wadnay u dadaalayeen dadku anaga nama aqoonin anagana dan gaar ah naga may lahayn qof walba si wuxuu u dadaalayay arinta meesha taala iyo baahida meesha taala iyo muhiimadda ay leedahay waxaan mahad labaad celinayaa maadaama isbitaalka maanta aan furayo marwada qaranka Soomaaliyeed Seena Cabdi Macalin oo runtii qayb weyn ka qaadatay lacag aruurintii aanu ka sameynay xamar oo la'aanteeda waxba noo suurtoobeen waxaan mahad celinayaa tiimka abaabulkan maanta tiimka sameeyay mahad celiskooda ilaahay baa abaalkooda siinaya maxay haytay Maxamed Yuusuf gudoomiye Maxamed Yuusuf gaashaan Xuseen Xaashi iyo inta kale dhalinyarada ururka joogta Puntland ee gobolada ka soo jeeda dhammaan dadka ka soo qayb galay ee soo safray in arintan hitrigeeyaan waa mahad celinayaa runtii waxaan mahad gaar u celinayaa saddexda oday Maxamed Yuusuf Tika iyo gaashaan iyo Xuseen Xaashi oo ilaahay garow markaan gacanta lagu hayay arintan gacanta ku hayay aan u dhiibnay si qurux badan u dhameeyay anigu markasta aan hadlo waxaan mahad gaar u celiyaa familygeyga reerkayga maxay haytay odaygayga caruurtayda hooyaday walaalahay oo la'aantooda anigu aan halkan joogi kareen hadeen arintan ay arin ay doonayaan ama ay garab taageen hadaysan hay markasta waan idin mahad celinayaa waqtigii aan idinka gooyayna wixii ka soo baxay waad aragtaan marka aad iyo aad baa maxay haytay idinku mahad celinayaa waxaan kaliya oo ka codsanayaa dadka jooga Soomaaliyeed ee jooga halkan hadee noqotaan iyo Horbogays iyo maxay haytay Woodwood iyo agaagaarkeeda hal arrin oo dhinaca caafimaad ka xiriirta waxa way caafimaadku qofka wuxuu wax tarayaa markuu qofku yimaado iyadoo wax laga qaban karo qofku inuu yimaado hadii hooyadu iyadoo 5 maalmood foolanaysa ay timaado waxba lagama qaban karo haddii qofku isagoo 5 cisho guri ku sakaraan yimaado waxba laga qaban karo maadaama hadda caafimaadka inta idin jiro oo dhiig leedinka cabirayo oo sokorta leedinka cabirayo oo HB leedinka cabirayo waxaan ka codsanayaa inaad serviceka caafimaadka isticmaashaan idinkoo aan sakaraad ahayn timaadaan maanta waa furan yahay dhaqaatiirtii waa diyaar laabkii waa shaybaarka waa diyaar raajadii waa diyaar wax kasta oo caafimaad laga eego dhinac kasta oo laga eego caafimaadka waa diyaar baa leedin yahay waxa xarunta loo furay in caafimaadka deegaanka wax laga bedelo waxa loo furay inaan hooyo dambe aysan ku dhiman meel dhexe waxa loo furay in qof waayeel oo blood pressure qaba inuu san gurigiisa u joogo marka dambe la dhihin wuu dhintay waxa loo furay caruurta yaryar inay shoombiyood u dhimanin arrimihii loo furay oo dhan waa lagu xalinayaa waana idin furan yahay waxaan idin sheegayaa oo kale anagu markaan soo baxaynay aan halkan imaanaynay waxaan ku talagalnay oo mar walba aan raadinaa shaqaale tayo leh shaqaale kasta oo ka shaqeynaya isbitaalkan imtixaan baa laga qaaday imtixaan buu ku gudbay imtixaan iyo wuxuu yaqaan buu ku yimid taasina waa mid kamid ah inaan raadinayno wax walba tayada ugu fiican ee la raadinayo tayada ugu fiican oo magaalada taalo oo wadanka yaalo la raadinayo hadduu noqoto qof walba oo ka shaqeynaya halkaa wuxuu ku yimi aqoontiisa wuxuuna diyaar u yahay inuu xaaladaada caafimaadka adiga wax ka bedelo caruurta xaaladeeda wax ka bedelo wanaaga community-ga soo koriyo dhammaan caafimaadka dhinac walba 12kii ilaa iyo waqtigaas arintan waa arin soo socotay arin lagu soo degdegay ma waa arin aad iyo aad looga soo baaraadegay intaas oo dhan maalintan inaan nimaadnaan doonin maanta inaan nimaadno in gabar Soomaaliyeed caafimaadkeeda iyo xaaladeeda lagu badbaadiyo marka walaalayaal way mahadsantihiin aad iyo aad baad mahadsantihiin isbitaalka ilaaliya dhowra dhagaxa ka qaada qashinka ka qaada qof walba oo idinka mid waxaan ka codsanaynaa inuu qashinka nabadgelyada wanaaga inuu wanaagiisa ka shaqeeyo because haddii wanaagiisa qof walba ka shaqeeyo wax badan buu inoo joogaya qarasharna way kaga baxaya laakiin saabsan tahay haddaynu nahay reer Horbogays maxaa layna ka rabaa maxaynu u baahannahay inaynu samayno maxaa cusbitaalku ina ka rabaa waa maxay kaalinta inagu aan qaadan karnaa ma lacag baynu keenaynaa ma waxaynu samaynaynaa matalan waxbaan dhisaynaa
waxaa layna ka rabaa qodobka koowaad inaan u mahad celinno horta marka koowaad ilaahay marka labaadna inaan u mahad celinno gabdhihii halka laga sheegay magacadooda fawsiya gabadha halkaa fadhida weeye oo kiyaalaha qabta waxa laga yaabaa yaan la isku khalkhaldinay oo saara ka sokaysa saara fawsiya istaag xaggaasaa qaar jira hal lagu arkay dadku dhan ku arkeen intii reer awrboogeysay anu reer awrboogeys baan ka mid ah waxaan u kacaynaa maxaynu ballan qaadaynaa galabta waxa layna ka rabaa waa maxay kow waxaan ballan qaadaynaa ilaahayna inaanu mahad celinno gabdhaha Soomaaliyeed ee shanta ah ee arrintaa ku fakerayna inaan abaal marino maxaan ku abaal marinaynaa waxaan ku abaal marinaynaa cisbitaalka quruxda badan in aynu ilaalino in aynu qaybteena ka qaadano in aynu daryeelo inaynu nadaafadiisa gacan ka geysano inaynu wax kasta ee cisbitaalka inta ka dhiman lagu darayo haddaynu reer awrboogeysnahay in aan halka galabta ka ballan qaadno ummadda oo dhan way ka yaabtay dadka saa u fikiray ee ka dhiidhiyay ka dhibaatooday dadkooda dhibaataysan bila caafimaadka ah da wixii loo dhan lahaaba waa la yidhi waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa gabdhaha shanta ah ee ilmaadeeradiina ee ka fikiray ee ka dhiidhiyay dhibaatadii caafimaad la-aan ahayd ee haysatay mandaqadan xudunba garoowe hargeysa muqdisho inta ka fog baynu aadi jirnay alxamdulilahi rabbilcaalamiin maanta halkan gabadhii foolatay haddii ilaahay sahal yasiiro u kala keenana ay ku umulaysaa haddii kalena dhakhtarkii qali lahaa uu diyaar ugu yahay wax kastoo daryeer caafimaada laydinku keenay idina inaad ilaahayna ugu shukri noqdaan gabdhahana ugu shukri noqdaan kasbataan la shaqaysa doctor maxamuud daahir afqarshe aniga iyo cali faarax maxamuud oo abtigaya ayaa ku wareejinay qoladan bahda caafimaadka ee gabdhaha kan jaaliyadda waxaa quruxda badan iyo khayrkaasaa ka soo baxay waad salaam ya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaanu markaa u mahad celinaynaa aniga oo wakiilka ah ama ka tirsan waayeelka iyo odayaasha deegaanka gabdhaha ururka kalkaal ee foosiya tiimka ay madaxda ka tahay baan u mahad celinaynaa waxaanu ugu mahad celinaynaa nimcada intaa leeg magaalatan oo dadkeedu inta hadda idin hor fadhida iyo in ka badan ay maqan tahay oo magaalada ku maqan tahay oo deganeyd oo garanaya uun baa xusaya oranaya waryaal awrboogaysina sidaasay war mashruucani malaa awrboogays buu ugu bahay wey marka meeshu waa meesha sidaas waa qarfe waa waddan ma leh lama iman karo war waxaanu idinka codsanaynaa inay idinku noqotaan qaylaroorka oo ummadda danteeda ahaa ninkii maal geliyey iyo ninkii muruq geliyey intaba ilaahay inuu wax roon ugu bedelo intaasuna waa duco intaa markaan ka gudbo haddaanu nahay degaanka awrbogayseed wixii nala kala dardaarmay oo dantu ku jirto mustacid baanu ku nahay annagoo istiilayna waa qabanaynaa dadkii ka qayb qaatay dhismihiisa hadday Mareykan joogaan hadday xamar joogaan hadday garowe joogaan iyo haddii ay meel kale joogaanba ee maalkooda ku bixiyay iyo kuwii maskaxdooda ku bixiyayba waxaan kale oo iyagana aanu mahadnaqayaa dadkii bogcadan bixiyay iyo dadkii kale ee iyaguna hawsha intaas oo dhan ka soo qayb qaatay reer awrboogaysad haddaynu nahay hal wax baa layna weydiistay wax laynagu yidhi cusbatalkii waa laydiin furay ma la shaqaynaysaan baa laynagu yidhi ma la shaqaynaysaan macnaheedu muxuu yahay cusbatalku waxa weeye ma la shaqaynaysaan talabaad waxa weeye in la ilaalinayo oo qof walba uu ilaalinayo inuu isagu leeyahay ama sida uu gurigiisa u ilaaliyo taana ma ballan qaadnaa wixii xumaan ama dhibaato ku wada ama kaga soo horjeeda ma ka hortagnaa waad mahadsantihiin waxaanu ducaynaynaa gabagabadii gabdhaha ugu horeeyaan gabdhaha iyo ergada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryeynaa gabdhaha hawshaas soo qaban qaabiyey ee cusbatalka intaa leeg inoo dhisay ee halkaa jooga
إلهي سبحانه وتعالى إنه بركيه تدي الدنيا هدي يبدلين وبتكلاي هو بركيه